daawadayaal qaybtan qaybtii labaad warbixinihii dhinaca diblomaasiyadda iyo wararkii ugu dambeeyay dunida 15 bisha weey waa Arbacaa mar kale barnaamijkeena falaqaynta iyo dunida wararkii ugu dambeeyay caalamiga aan dhaxji waxana wararka dalkaasi Turkiga iyo Mareykanka oo aad u xooggan isla markaana kamid ah wararka ugu badan ee caalamka warbaahinta ugu sarreysa dawladda dalkaasi Turkiga ayaa waxa ay wali wajahaysaa loolan adag oo dhinaca dhaqaalaha intayna horta u gelin hadalkii ugu dambeeyay ee labada dawladood ka soo kala baxa aan ku horeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Russia ayaa u duulay magaalada Ankara wuxuuna halkaas ka cadeeyay in dawladda dalkaasi Russia ay taageersan tahay go'aamada wax iska caabinta dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi Turkiga uu kala soo horjeedo Mareykanka Sergey Lavrov wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa ku soo dhaweeyay Ankara Mevlut Cavusoglu dhigiisa dalkaasi Turkiga wuxuuna sheegay in dawladda dalkaasi Russia ka sido madaxweyne Putin ka dalkaasi fariin ah oranaysa in dawladda dalkaasi Ruushku ay garab taagan tahay hiil iyo hooba dalka Turkiga xilligan adag wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan cadeeyo hal arin waxaan sheegayaa in Turkiga weerarada ka dhanka dhinaca dhaqaalaha uu yahay sharci darro iyo mid aan sal ku lahayn buu ganacsiga caalamiga sida dareedeed Mareykanku yuusan ku tooqin kol walba dollarka wuxuuna marka dambe la badi doonaa in lacagta dollarka dagaal isku dhan ah caalamka dhan uu kala soo horjeesto wuxuuna ka digay madaxweynaha dalkaasi Putin inuu ka dhamaanayo duqaadka ku saabsan daandaansiga dollarismka oo uu sheegay inuu dhibaato xoogan ku yahay wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu isaguna halka ka hadlay ayaa sheegay in sharafta Mareykanka aysan ahayn in god maalin walba lagu sii rido wuxuuna sheegay in uu jiro buu yiri jahawareer siyaasadeed oo ka jira aqalka cad oo ay la ogeyn buu cidda go'aamada noocan oo kala kol walba fisa asagoo sheegay in dalka Turkiga uusan haba yaraatee u jixin doonin wuxuu ugu yeeray jujuub iyo riixitaan lagu khasbayo in la sameeyo waxyaalo aysan raali ka ahayn wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Turkiga ninka la yiraahdo Brad Albayrakna wuxuu ku dhawaaqay in lacagta liiradu ay dib u halgantay isla markaana ay riixday lacagta dollarka kadib talaabooyinkii uu ku dhaqaaqay bangiga la yiraahdo Central Bank of Republic of Turkey ee CPRT loo soo gaabiyo ama bangiga jamhuuriyadda Turkiga ay ku qasirtay in lacag gaaraysa 8 bilyan oo dollar lagu taageeray bangiyada yaryar iyo ganacsatada maalgashiyaasha ayuu sheegay Albayrak in haatan lacagta liiradu ay dib u halgantay waxaana durbabe la arkayay iyadoo lacagtu ay dollarka dib isaga riixday isla markaana iska caabiday waxaana dib ugu soo noqotay meel markaasi macquul ah ilaa xad waxaana haatan lacagta dollarka ay ku furantay iyadoo lagu iibsanayo 6.89 filis waxaana ka dhigan tahay in lacagta liiradu ay 3% kor u soo kacday halkii ay taagneed shalay oo saalisahay waxa suuqyadu ay ku furmeen lacagta liirada oo u muuqata inay gabi ahaanba ay kor u soo qaadmayso waxaana laga aaminsan in 5% ay gaari doonto maanta goor dambe iyadoo kor socodshadeedu uu xoojin doono dhaqaalaha dalka sida uu sheegay wasiirku wuxuu sheegay in sidoo kale la go'aamiyay in la saxo dhammaan habdhaqanka dhaqaalaha ee dalka oo laga soo bilaabo buuri A to Z ama ilaa iyo xarafka sad la yiraahdo oo uu sheegay in la gaarsiin doono in gabi ahaanba lacagta dollarka lagu daro daadka isla markaana halganku uu soo noqon mid istaaga dhanka kalena dawladda dalkaasi Mareykanka ayaa sarkaal la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters oo magaciisa diiday inuu sheego ayaa sheegay in wada hadaladii ka soconayay aqalka cad duleedkiisa u dhaxeeyay buur John Bolton iyo safiirka dalkaasi Turkiga u jooga Mareykanka Cedar Click ay ku dhamaadeen waxaan ka soo naas cadaan la'aan ama ay guul daraysteen sarkaalkan magaciisa diiday balse la hadlay wakaaladda Reuters ayaa sheegay in Mareykanku uu ka baaraandegayo wuxuu ugu yeeray talaabooyin cunaqabatayna oo adag oo Turkiga la duldhigo wuxuuna sheegay in hadda kiiskii person baadariga la yiraahdo aan waxba laga gaarin wuxuu yiri aan ku sheego madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Mr. Trump wuxuu 100% aaminsan yahay ballan qaaday in uusan nasad doonin ilaa uu baadari person uu ku soo celiyo dalkiisa hooyo ama uu keeno magaaladiisa taas inta ay dhacasana wuxuu sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka Turkiga wuxuu ka digay in ay Mareykanku ka warsugayaan maalmo ama hal toddobaad in Turkigu uu wax ka bedelo soo deynta wadaadkaasi goorsii horeysana wadaadka kiisa ama qareenka u hadlaya sheegay in mar kale maxkamadda ay u direen appeal ama raacfaan in la siiyo wadaadka kaas oo lagu dalbanayo in la cafo si kastaba ha noqotee waxa dawladda Mareykanku ay ka digaysaa in ay bilow tahay dagaalka dhinaca
dhaqaalaha ee Turkiga iyo Mareykanka u bilowday haatana madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha dalkaasi Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa isaguna ku dhawaaqay in la joojiyo dhammaan alaabta elektrooniga qalabka elektrooniga ee dalkaasi Turkiga la keeno ee Mareykanka laga leeyahay Rajab Tayyip Erdogan oo la hadlayay ururka la yiraahdo the Foundation for Political Economic and Social Research SETA loo soo gaabiyo kula hadlayay magaalada xarunta Ankara oo ah kulankoodii 17aad oo ay ku jiraan xubno inta badan haysta shahaadooyinka sarsare ee dhinaca dhaqaalaha ah ayuu wuxuu kaga dhawaaqay halkaasi hadaladii ugu adkaa abid ee dalka Turkiga uu diro Mareykanka wuxuu yiri hadii aad haysataan iPhone waxaanu heli karnaa Samsung sida dhinaca kale waxaanu haysanaa kuwa dalka iyagu telefoonada dalka iyagu ay soo saaraan oo ay kamid tahay Venus iyo ay kamid tahay Festal waxaan doonayaa inaan halkan kala hadlo dadka Turkiga ah quba telefoonada iyo qalabka Apple markaasi shirkadda Apple ay leedahay dalkaasi Mareykanka daadiya isla markaana ku bedesha ayuu yiri kuwa dalkiina hooyo ay soo saaraan saacad kadib markii madaxweynaha dalkaasi Turkiga oo khudbadiisu ay baxday ayaa shirkadda dhinaca elektrooniga u qaabilsan dalkaasi Turkiga ee la yiraahdo Electronic Festal Trading and Port Istanbul ee PIST loo soo gaabiyo waxay ku dhawaaqday in 7% ay kordhisay soo saarka telefoonadeeda kadib markii waxay tiri cirkaas ku shareeray dadka online-ka ku soo dalbaday malaayiin telefoon oo noocaas ayagoo dadka Turkiga lagu yaqaano inay hal mar wada guuraan kolka ay timaado inay dalkooda daafacaan ayaa waxay u muuqataa in dagaalku uu bilow yahay wuxuu yiri waxaan rabaa inaad hal arin fahantaan waxay doonayaan inaanu sameeyno waxa weeye buuri inaynu gaadhno isku filnaansho buuxa waxaan taa ku gaari doonaa waxa weeye wax soo saar waxaan doonaynaa inaan wax soo saar ka badino wax soo saar ayuu ku celiyay 3 jeer madaxweynaha dalkaasi Turkiga oo sacab weyn kala kulmay halkaasi madaxweynaha Rajab Tayyip Erdogan ayaa wuxuu yiri waxay doonayaan inaynu ka hor kufno waxay ku kufeen ama ay ku guul dareysteen in ay dhinaca siyaasadda ay guul ka gaaraan oo ay siyaasadeena farafareeyaan ama ay u hogaansano kadib waxay go'aansadeen inay dhinaca dhaqaalaha u isticmaalaan hubahan oo ay ka dhigaan sida diblomaasiyadda oo kale ama ay ka dhigaan sida talaabo military oo kale ama ay ka dhigaan dhinaca dhaqan dhaqaalaha iyo xasilooni darro dhinaca bulshada ah oo inagu sameeyaan weerarkan Turkiga ka dhanka ah maaha ayuu yiri mid inagu cusub sida daraadeed waxaan idii aaminsanahay in aynu bedelo dhammaan hab dhaqanka aan u noolahay oo dhan sida daraadeedna aynu laba arrimood xoog saarno wax soo saarka iyo isku filnaansho gudaha haday tahay dhanka elektrooniga haday tahay dhanka difaaca iyo warshadaha haday tahay dhanka dhoofida waxyaalaha iyo suuqgeynta dalalka sacbada inoo furay ee caalamka adduunka oo dhan ayaa Turkiga saaxiib la ah ayuu sheegay Rajab Tayyip Erdogan oo taageerada uga imaanaysa dunida inta badan ay sii xoogeysanayso madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in talaabooyin wax ku ool ah laga qaadi doono oo uu sheegay inuusan eega doonin in dalkiisa uu noqdo kubad waxaan rabaa inaan idii cadeeyo buuri tani waa dagaal ka dhana dhaqaalaheena waa dagaal cad oo ah mid la soo abaabulay sida daraadeed waxa laga hortagi karaa ayuu yiri wax soo saar waxa laga hortagi karaa ayuu yiri inaan dadkeena ugu wacno in ay xoog saaraan in ay alaabaha gudaha ka hormariyaan in ay iibsadaan kuwa banaanka gaar ahaan kuwa Mareykanka wuxuu sheegay in talaabooyinkan iyo arbaaxooyinka Mareykanka uu huwinayo Turkiga aysan kaliya Turkiga ahayn Shiinaha Russia Iran iyo Europe oo dhan ayuu saaray cunaqabatayn iyo xad dhaaf ku saabsan buuri cashuurta Canada oo next doorka ama albaabka ku xiga ayay sidoo kale u galeen sida daraadeed waxaan u diyaar garoobanaa gunti dhuuqsi ku saabsan buuri wax iska caabin dhaqaalo iyo kor u qaadis wax soo saar wuxuuna ugu baaqay dadka reer Turkiga inay u diyaar garoobaan halgan xoogan oo ay iskaga caabinayaan talaabooyinka dawladda dalkaasi Mareykanku wali waxay ku hanjabaysaa iyaduna inay xoojin doonto talaabooyinka ka dhanka ah dalkaasi Turkiga waxaana mudiyaha u soo faysanaysaa talaabooyin badan oo kale oo dhinaca dhaqaalaha inay ka qaado dalkaasi Turkiga daawadayaasha qiimaha leh gabadh Soomaaliyeed oo iyaduna ku guuleysatay reebka in ay u tartanto doorashada ugu dambeysay ee Congress Ilhan Omar ayaa ku guuleysatay isla markaana ka guuleysatay gabadhii kula tartamaysay degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee dalkaasi Mareykanka iyadoo u soo baxday reebka ugu dambeeyay ee doorashada dhici doonta bisha November
gabadhii la tartamaysay Alexandria Ocasio-Cortez ayaa waxaa ka badisay Ilhan Cumar oo iyadu ah xubin ka tirsan guddiga golaha baarlamaankeed heer maamul goboleed ee gobolka Minnesota dalkaasi Mareykanka. Ilhan Cumar oo ku nool dalkaasi Mareykanka muddo ka badan 20 sanadood oo ay ku timid qaxoontinimo ayaa waxay noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaali Amerikaan ee xubin ka noqda guddiga golaha baarlamaanka aan iraahdo ama kursi ka hela aqalka baarlamaanka ee dalkaasi gobolkaasi Mareykanka ee gobolkaasi Minnesota dalka Mareykanka. Kursigan haatan ay u tartamayso Miss Ilhan ayaa waxaa baneeyay ama baneynaya Keith Ellison oo asaguna ahaa xubintii ugu horeysay Muslim ah ee dalka Mareykanka ka mid noqda aqalka Congress-ka kadib markii uu go'aansaday inuu u tartamo kursiga markaasi xeraalyaha guud ee gobolka Minnesota. waxa ay gabadhan ay halgami doontaa isla markaana ay la tartami doontaa gabadh ka tartamada markaasi xisbiga la yiraahdo Republicanka bisha 6 Jennifer Islinski sida ay sheegayso warbaahinta dalkaasi Mareykanka kolkii guusha ay ka gaadhay sarreebka xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa iyo barteeda Twitterka waxay ku soo qortay waxaanu bilownay tiri ololahan inaanu si aan u cadeeno in dadku ay diyaar u yihiin inay u dagaalamaan shaqada dalka Mareykanka iyo dadka Mareykanka taasoo ah in ay runtii ay dalkooda u dagaalamaan oo gobolkooda u dagaalamaan isla markaana waxay sheegtay in ay xoojin doonto in ay kor u qaado dhaqaalaha gobolka iyo sidoo kale inay waxbarashada lacag la'aanta ee heerka jaamacadeed ee ardada ay xoojiso. sidoo kale Ilhan Cumar waxa ay taageero xooggan ka heshay gofernatoraha dalkaasi gobolkaasi Minnesota dalkaasi Mareykanka Mark Dayton oo asagu taageeray iyo dhaqdhaqaaqa la yiraahdo Democracy for America oo ayaguna si xooggan u taageeray. Ilhan Cumar oo ah gabadh wax baratay isla markaana ah gabadh Soomaaliyeed ayaa si weyn looga jecel yahay dalkaasi Mareykanka gaar ahaan gobolka Soomaalida ku badan tahay Minnesota. waxa ay si adag u taageertaa qadiyadda reer Falastiin iyadoo dhowr jeer ugu yeedhay dawladda Israa'iil inay tahay dawlad midab kala sooc oo ah markaasi xukuumad ka dhan ah dadka reer Falastiin waxaana dhowr jeer ay beenisay in ay hadaladeedu yihiin kuwo Yuhuud nacayb ah balse waxay tiri way ka fog yihiin hadallo Yuhuud nacayb bedelkii waa kuwo xuquuq raadina. Ilhan Cumar sidoo kale waxay wajahday weerar markaasi uga yimid nin taksiilaha oo taxi ay ka raacday magaalada New York sanadkii 2016 kaas oo ugu wacay inay tahay argagixiso ama kooxda ISIS uguna hanjabay hadii aysan xijaabkeeda iska saarin inuu talaabo ka qaadi doono iyadoo kol dambe dacweysay ninkaasi isla markaana lagu helay dambi ah inuu sameeyay dhaqan xumo ku saabsan weerar dhinaca afka ah iyo inuu sidoo kale uu sameeyay waxa loo yaqaan discrimination ama midab kala sooc. si kastaba ha noqotee haatan waxa ay farxad weyn arintan u noqotay si weyn u soo dhaweeyay kumanaanka kun ee Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ku dhaqan waxayna gabadhan noqon doontaa gabadha labaad ee muslimada ah ee u tartanta markaasi aqalka Congress-ka inkasta oo ay ku kala duwan yihiin gabadha reer Falastiin ee Rashida Tayyib ee iyadu ka soo baxday gobolka Michigan ayadu iyo Ilhan waxay kula duwanaa doonaan. Ilhan waxay wajihi doontaa loolan uga yimaada Jennifer Islinski oo ayadu ka socota xisbiga Republicanka halka Rashidu aysan ayadu haba yartay wax hortaagan aysan jirin balse dadka odarasa siyaasadda gobolka Minnesota isla markaana warbaahinta dalkaasi Mareykanka kooda ugu weyn ee uu ka mid yahay CNN-ka ayaa waxay tibaaxeen in ay si fudud u guuleysan doonto Ilhan isla markaana ay Washington imaan doonto iyadoo noqon doonta qofkii ugu horeeyay ee muslima ee gabadh ah ee Soomaali ah ee ku guuleysata xilka xubinimada aqalka markaasi Congress-ka dalkaasi Mareykanka taasoo u noqon doonta tusaale weyn dadka Soomaaliyeed in ay markaasi haday wax bartaan isla markaana ay la qabsadaan dalka Mareykanka in ay dalka dhexdiisa ay si markaasi dadkooda ay ugu noolaadaan si nabadgelyo ay runtii ayaguna ay dabcan ka markaasi ka qayb qaadan karaan dawladda dalka Mareykanka iyo sidoo kale in ay xoojiyaan bulshadooda xuquuqdoodana raadiyaan. dhaqdhaqaaqa la yiraahdo Move On ayaa iyaguna ku dhawaaqay in ay si weyn u taageereen gabadha Ilhan. daawadayaasha qiimaha leh dabcan ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayay runtii arintan u taabanaysaa gaar ahaan dadka reer America gaar ahaan gobolka Minnesota gabadhan laga soo doortay waxaana ay noqon doontaa inay dadka Soomaaliyeed ay si weyn uga qayb qaataan maalinta codbixinta si weyn ugu soo baxaan si ay u hubiyaan in Ilhan loo diro Washington. jimcaha hadii Allah idmo waxaad ku casuumantihiin inaynu duulaanka dhinaca dhaqaalaha ee dalalka Turkiga iyo Mareykanka u dhaxeeya aynu ka hadalno isla markaana aynu eegno arrimahan oo halka ay salka ku hayaan iyo jiitanka xooggan ee khilaafka labadan dal ee sanadii ugu dambeeyay u dhaxeeyay
dabcanna faafinta wararka iyo gaarsiinta asxaabteena waa xaggeena ararunta iyo keenista wararka ka gaandunooda waa xagganada aad aan ugu mahadceliyo asxaabteena sida weyn mar walba uga qayb qaata dhinaca markaasi aaraahda kuwa sida gaarka noo dhiirigeliya noogu soo duceeya